xarunta gobolka Awdal laga furay shir lagaga hadlayay nabadgelyada iyo horumarinta arrimaha bulshada waxaana ka qayb qaadanaya gudida odayaasha ee nabadgelyada ee gobolka Awdal iyo gudida horumarinta degmada Boorama shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxa soo qaban qaabiyay waaxda nabadgelyada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxaana furitaanka kulankan ka hadlay agaasimaha waaxda nabadgelyada wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Cali wuxuuna ka waramay in gudida nabadgelyada heer gobol iyo gudida horumarinta adeegyada degmada Boorame si iskaashi leh u gutaan shaqadooda haddana hawsha ay qaranka u haysay wali haysa laba gudi baa ka gudi waxa weeye gudida gobolka odayaal baa ku jira gudida gobolka ee nabadgelyada gobolka degmada waxa weeye nabadgelyada degmada iyo horumarka degmada waxa ku jira odayaasha baa ku jira haweenkii dhalinyaradii ururada bulshada aragsan yaa ku wada jira marka waxaan doonaynaa shirkan ku saabsan horta marka ugu horeysa isbarano iyo marka labaad ah in qaabkii aad u shaqaynayseen daan isla eegno sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maayarka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile wuxuuna cadeeyay ujeedooyinka gudida loo sameeyay waxyaabaha ay qabanayaan iyo tiradoodu inta ay leedahay waxaana hadaladiisii kamid ahaa hawshan waa uu soo jiitantay muddo badan soo socotay daraasadeeda leh laga taxadirayay sidii loo soo saari lahaa lees yaana hawsha loo baahan yahay in gudigu qabto kamida dhalin lahaa inay gudigaasi noqdaan iyadoo la eegayo dhinacyo fara badan iyadoo la eegayo firaaqada qofku haysto iyadoo la eegayo aqoonta iyadoo oo la eegayo waxaan la inagu saliday isku dheelitirka iyadoo la eegayo kartidooda iyadoo la eegayo danaynta inta ay danaynayaan hawsha loo igmanayo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal ayaa isaguna gudida oday dhaqameedyada heer gobol iyo heer degmo kula dardaarmay inay si dhab ah hawshaasi u gutaan seminaar ahaan odayada wixii ka dhiman waa aqligu wax la isku dartaray fikirku wax la isku dartaray in la yiri sameeyo seminaar baan akhrishan waxaana isagu goobjoog ka ah la taliyaha agaasimaha nabadgelyada ee wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Daahir Cabdi shirkana waa kii ugu horeeyay ee gudida oday dhaqameedyada ee heer gobol iyo heer degmaba ay kulan ku yeeshaan xarunta gobolka